bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax idaacadda kulmiye gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo goordhow lagu weeraray xarunta laanta ilaalada canshuuraha oo ku taala afaafka hore ee dekedda muqdisho sanatarre iyo siyaasiyiin ka soo jeeda puntland oo cambaareeyey diidmada puntland ee meelmarinta matalaadda gobolka banaadir ee aqalka sare arday kor u dhaafaysa 16 kun oo maanta deegaanada puntland u fadhiisanaya imtixaanka shahaadiga ah xildhibaanada golaha shacabka oo maanta dood adag ka yeelanaya ku noqoshada miisaaniyadda 2020 oo xukuumadda wax ka beddel hore ugu samaysay ammaanka magaalada gurceel ee gobolka galgaduud oo saakay aad loo adkeeyey iyo madaxweyne qoorqoor oo halkaasi ku wajahan wasaaradda amniga galmudug oo sheegtay in lagu wareejiyey gaadiid dagaal iyo maleeshiyaad ka qayb qaadan jiray dagaallada ka dhaca galgaduud ciidamada amniga cabudwaaq oo gacanta ku soo dhigay dad ka ganacsanayay waxyaabaha maanka dooriya maxkamadaynta 20 ruux oo loo haysto dilkii wariyey jamaal qaashuqi oo ka bilaabatay waddanka turkiga iyo suudaan oo ku dhawaaqday inay dib u bilaabanayaan wadahadalladii kala dhexeeyey masar iyo etoobiya hormuud telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah hormuud telecom u doono internet xawaarihiisu sarreeyo adna qaado hormuud saaxiibkaana u qaad waa subax sabti ah taariikhdu ay tahay 4 bisha 7 luulyo sanadka 2020 intaad maqasheen waxa ay noo haysa saakay wariyayna Maryan Muxuddin maadsanid war soo saaraheena Yunis Duraan Cali subax wanaagsan dhageystayaal gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa goordhow lagu weeraray xarunta laanta ilaalada canshuuraha oo ku taala afaafka hore ee dekedda magaalada Muqdisho wariyaheena Axmed Saciid Axmed oo ku sugan meelaan sidaas ugu fogeen goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa iminka qadka si toos ah ugu jira Axmed hadii aad ina maqasho sharaxaad ka bixi sida ay wax u dhaceen marina waa maasan tahay qaraxu wuxuu ka dhacay xarunta turbotariyada ama laanta ilaalada canshuuraha oo ku taala afaafka hore ee dekedda magaalada Muqdisho waxaana uu ahaa gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo goobta lagu dhiftay saraakiil ka tirsan booliiska Soomaaliya oo goordhow aan la hadla waxay xaqiijiyeen in khasaaro dhimasho iyo dhaawac laba oo halkaas ka dhashay isla markaana dhimashada iyo dhaawac qarxa ka dhashay aad u fara badan tahay waayo goobtu waa goob mashquulkeeda ama zaxmadeedu ay aad u badan tahay waxa halkaas ku sugnaa xilligu qaraxa uu dhacay dad muruqmaal ah oo doonaya inay gudaha u galaan dekedda Muqdisho iyo sidoo kale dad kale oo isticmaalayay wadada hormarta dekedda magaalada Muqdisho afayeenka booliiska Soomaaliya waxa uu sheegay in qaraxa goordhow aan la xiriir waxa uu sheegay in qaraxa uu jiro khasaare dhimasho dhaawac sidoo kale ay jirto isla markaana dhawaan booliiska Soomaaliya ay faahfaahin ka bixin doonaan khasaaraha rasmiga ah ee qaraxaasi ka dhashay laakiin qaraxu wuxuu ahaa mid aad u culus oo dhammaan degmooyinka gobolka banaadir intooda badan laga maqlay saaka waxaana uu noqonayaa qaraxii ugu cuslaa ee magaaladan ka dhaca tan iyo 28 bishii December 2019 markaas oo qarax dhimasho iyo dhaawac fara badan oo soo ka dhacay ex control gooy markaas wixii ka dambeeyay qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho waxay u badnaayeen kuwa dhulka lagu aaso iyo qaraxyada baabuurta lagu xiro laakiin qaraxan saaka dhaca wuxuu noqonayaa kii ugu xooganaa ee Muqdisho ka dhaca tan iyo muddadaas aan sheegay hadda waxa goobta ku sugan gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambalaasta oo doonaya iyagu inay halkaas ka qaadaan dhaawacyada iyo meydadka qaraxu uu sababay sidoo kale ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa goobta tagay oo xiray dhammaan wadooyinka soo gala dekedda marka faahfaahin intaas ka badan lagama hayo qaraxa laakiin dhageystayaasheenu wixii intaas dheer wararkeena iyo warkan intuu ku guda jiro ayay ku dhageysan doonaa laakiin waxaa xusid mudan in qaraxu uu ka dhacay laanta ilaalada canshuuraha oo ku taala afaafka hore ee dekedda Muqdisho ama turbotariyada qof walba sida uu yaqaan waad maasantahay Axmed sanatarre iyo siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada Puntland ayaa cambaareeyay diidmada Puntland ee meelmarinta matalaadda gobolka banaadir ee aqalka sare Axmed Maxamed Ibraahin ayaa ka waramaya qodobkan mas-uuliyiin ka tirsan labada aqal siyaasiyiin waxgarad iyo ganacsato ka soo jeeda deegaanada Puntland ayaa war qoraal ah oo ay soo saareen waxay kaga hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka maqaamka Muqdisho iyo khilaafka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland u dhaxeeya mas-uuliyiintan ayaa waxay soo dhaweeyeen 13 sanatar ee aqalka sare laga siiyay gobolka banaadir isla markaana waxa ay diidiilo ku tilmaameen madaxweyne Farmaajo shirka uu ku baaqay in Muqdisho ay ku yeeshaan golaha amniga qaranka
dhanka doorashada ayay sheegeen in haddii doorasho qof iyo cod ah ay wakhtigeeda ku dhici weyso la raadiyo hab kale oo doorasho ah xilligeedana ku dhacda. shacabka reer muqdisho iyo shacabka reer puntland waa dad walaalo ah, horumar, nabad iyo barwaaqo isku rajaynaya, jecelna qarannimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. waxaan ka xunnahay ficiladii tabneed ee ay ka sameeyeen qaraarkii matalaadda muqdisho. qaar ka mid ah siyaasiyiinta reer puntland iyo gobolka banaadir ayaa lagu yiri qoraalka. waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo eryada xanafta leh, abuuriyana kala fogeynta iyo nacaybka labada bulsho ee reer puntland iyo gobolka banaadir iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka la soo saaray. siyaasiyiintan ayaa sidoo kale ugu baaqay maamulka puntland inay qayb ka noqdaan geedi socodka doorashooyinka heer federaal oo sharci ku salaysan si dalka looga badbaadiyo ku naqashada doorashooyinka dadban oo aan sharciyad lahayn. go-aankii ka soo baxay baarlamaanka puntland 29 bishii 6 ee sanadka 2020 farqidiisa 12aad wuxuu ka hor imaanayaa nidaamka dowladnimo ee kala soocidda awoodaha. baarlamaanku ma hor istaagi karo safar shaqo madaxweyne, waxayse korjoogteen ku leeyihiin shaqada laanta fulinta ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka la soo saaray. waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha puntland Saciid Cabdullaahi Deni in uu ka qayb galo shirka muqdisho ee uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Juulaay 5 ilaa 8 ee sanadka 2020 si uu u guto waajibaadkiisa dastuuriga ah ee loo egmaday uuna ilaaliyo danaha puntland iyo kuwa ummadda Soomaaliyeed. waxaan u rajaynaynaa in ay ilaaliyaan midnimada iyo wadajirka, ayna ka fogaadaan wax kasta oo dhaawici kara badqabka qarannimada Soomaaliya ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ay soo saareen siyaasiyiinta reer puntland. siyaasiyiintan ayaa gabagabada sheegay inaysan jirin qodob caddaynaya dastuurka puntland inay ka go'i karto Soomaaliya inteeda kale, arrintaana ay tahay mid lagu marhabaabinayo shacabka reer puntland. wararkii la xiriira puntland ayaan ku guda jirnay dhageystayaal. arday kor u dhaafaya 16,000 ayaa maanta deegaanada puntland u fadhiisanaya imtixaanka shahaadiga ah. cumar maxamed soomane ayaa faahfaahinaya qodobkan. puntland ayaa saaka wajahaysa qabashada imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 4 dugsiga sare iyo fasalka 8 ee dugsiga dhexe. waxaana qabashada imtixaanka shahaadiga maalmihii ugu dambeeyey diyaarintiisa soo waday wasaaradda waxbarashada puntland, iyadoo lagu gali doono 130 xarumood oo ku yaala gobolada iyo deegaanada puntland. tirada guud ahaan wiilasha iyo gabdhaha ee sanadkan u fadhiisan doona imtixaanka waxa ay tiradu gaaraysaa 16,500 arday, iyadoo 5,447 arday ay u fadhiisan doonaan dugsiga sare, halka 11,053 arday ay dugsiga dhexe u fadhiisan doonaan. mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada puntland ayaa tegi doona goobaha loogu talagalay in lagu qabto imtixaankan, iyadoo ciidamo ka tirsan kuwa amniga puntlandna la sheegay in imtixaanka ay ilaalin doonaan. sanadkan oo ka duwan sanadihii hore qaabka imtixaanka loogu fadhiisanayo waxaa wax weyn laga bedelay qaabka imtixaanka loo galayo maadaama uu jiro cudurka covid-19. waxaana wasaaradda waxbarashada puntland oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka maamulkaasi ay sameeyeen dadaalo lagu xakamaynayo cudurka coronavirus. waxaana goobaha loo fadhiisanayo imtixaanka la dhigay qalabka jeermiska dila iyo facemaskiga wejiga lagu xirto si aan cudurka laysu qaadsiinin. afhayeenka madaxtooyada puntland oo dhowaan warbaahinta la hadlay waxa uu ka sheekeeyey qaabka ay sanadkan wasaaradda waxbarashada maamulku ay u diyaargarowday qabashada imtixaanka shahaadiga ah, iyadoo taxadir laga muujinayo cudurka coronavirus. ardayda imtixaanka u fadhiisanaysa sanadka dugsiga sare iyo fasalka 8 isku darkoodu waa 16,500 oo arday, 5,447 arday waa dugsiga sare, 11,053 ardayna waa fasalka 8 bay imtixaanka u fadhiisanayaan. waxa ay ka dhici doonaa imtixaanku ku qabsoomi doonaa 132 xarumood oo guud ahaan puntland ah, iyadoo ay xarumahaasina ammaankooda aad loo adkeynayo oo ay ilaalinayaan askar gaaraysa 284 askari. kormeerka guud waxaa ka qayb qaadanaya ilaa 135 xubnood. dhowr jeer oo la doonayay in la qabto imtixaankan ayaa u baaqday sabab la xiriira faafitaanka cudurka covid-19, balse markii hoos u dhaca laga dareemay deegaanada puntland waxay xilligan suura gashay in la qabto imtixaankaasi. xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inay yeeshaan kulankoodii caadiga ahaa. xildhibaanada golaha shacabka ayaa xalay fariimo loo diray lagu wargeliyay in maanta uu jiro kulankii golaha ayna soo xaadiraan.
ajandaha kulankan ayaa ah sida lagu wargeliyey xildhibaanada horgeynta ku noqoshada miisaaniyadda 2020 oo ay soo ansixiyeen golaha wasiirada. xildhibaanada ayaa maanta lagu wadaa inay dood adag ka yeeshaan ku noqoshada miisaaniyadda 2020. golaha shacabka ayaa dood adag ka lahaa maalmihii aynu soo dhaafnay sharciyo kala duwan oo ay qayb ka ahaayeen sharciga doorashooyinka qaranka iyo matalaada gobolka banaadir iyo kuwa kale. ammaanka magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa saaka si weyn loo adkeeyay iyadoo madaxweyne Qoorqoor uu halkaasi ku wajahan yahay. dhinaca kale wasaaradda amniga Galmudug ayaa sheegtay in lagu wareejiyay gaadiid dagaal iyo maleeshiyaadkii ka qayb qaadan jiray dagaalada ka dhaca Galgaduud. Cabdistaar Xaaji Cali ayaa soo koobaya qodobkan. ciidamada ammaanka magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa saaka ilaa xalay aad u adkeeyay amniga guud ee magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud waxaana wadooyinka la soo dhoobay ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya. sidoo kale ciidamada ammaanka ayaa xalay baaritaano ka sameeyay xaafadaha qaar ee magaalada Guriceel waxaana la filayaa in maanta halkaasi uu gaaro madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. maalintii shalay ahayd taliyaha booliska Galmudug Abshir Nuur Geedi iyo saraakiil hordhac ah wafdiga madaxweynaha Galmudug ayaa gaaray magaaladaasi. geesta kale mid ka mid ah beelaha deegaanada Galmudug ayaa hub iyo gaadiid waxay ku wareejiyeen maamulka Galmudug waxayna munaasabada hub wareejinta ay ka soo qayb galeen madaxweynaha Galmudug madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka amniga ay ka dhacday degmada Balanballe ee gobolka Galgaduud. wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in hubka iyo gaadiidkan ay wareejiyeen maleeshiyadaasi loo adeegsan jiray dagaal beeleedada ka dhaca deegaanada Galmudug haddana loo weecin doono la dagaalanka al-shabaab. waxaa jirta xerooyin kale oo ereyadan aan ka samayn doono maalmaha soo socda oo ciidankani uu bilow u noqon doono. waxay bilow u noqdeen waqooyiga Galgaduud dhulka la yiraahdo ciidamadii ka xaroon lahaa ayay bilow u noqdeen waana ku macsan yihiin. waxaan rajaynaynaa bilowgaas in ciidamada kale oo ereyadan joogay gaadiidka kale oo ereyadan joogo dhan inay iyaguna maalmaha soo socda ay sidaan oo kale wareejintooda aan uga qayb galno. ciidanka waa la diiwaangelin doonaa diiwaan bay meesha ku galayaan. gaadiidka waa la diiwaangelinayaa. gaadiidkan wax kale loo isticmaali maayo. ujeeddadii loo abuurtay waxay ahayd oo loo samaystay in dad reer Galmudug oo kale in maaragtay dagaalo iyo dhibaatooyin jiray iyo wax la tabanayo reer Galmudug difaac iskula jiray ahayd isugu jira ayagu. hadda waxaan rabnaa in gaadiidka iyo ciidamada Galmudug joogo dhan aysan difaac dambe ayagu isku galin in cadawga guud oo Galmudug ay leedahay iyo xuduudaheeda iyo dhulkan nala ka haysto weyn oo kooxaha al-shabaab iyo argagixisadu ay haystaan in halkaas aan xoogeena ku wajahno. si kastaba ha ahaatee madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo muddooyinkii la soo dhaafay socdaal ku marayay deegaanada iyo degmooyin ka tirsan Mudug iyo Galgaduud ayaa magaalooyinka qaar uu gaaray sidaan oo kale loogu wareejiyay hub iyo gaadiid ay leeyihiin beelaha deegaanada Galmudug. wararka la xiriira Galgaduud haddii aynu dib ugu laabanana ciidamada amniga Galmudug ayaa xalay howlgal ay ka sameeyeen magaalada Cabud waa gacanta ku soo dhigay dadka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya. howlgalkan ay si wada jira u sameeyeen ciidamada militariga qaybta 12aad iyo booliska degmada Cabudwaaq ayaa lagu soo qabtay dad isugu jira dhalinyaro dadka xaafadaha magaalada ku dhibaateen jiray rag isticmaalaya maandooriyaha qamriga iyo kuwa ka ganacsanaya maandooriyahaasi. howlgalkan ay sameeyeen ciidamada dawladda ee ka howlgala Cabudwaaq ayaa qayb ka ah howlgallo lagu xaqiijinayo amniga degmada oo maalmihii dambe ka socda gudaha degmadaasi. halkaad warkaasi kala socotaan dhageystayaal waa idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho. warshada isbuunyada Dubai kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso. markaan akhbaraadka dibadda 20 qof oo u dhalatay wadanka Sacuudi Carabiya ayaa iyagoo ka maqan Turkiga uga bilaabanaya maxkamadeynta dilka loo geystay wariye Jamaal Khashoggi sanadkii 2018. Khashoggi oo ahaa nin caan ah oo dhaleecin jiray amiirka dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa waxaa qunsuliyadda boqortooyada ay ku leedahay magaalada Istanbul ku dhex dilay kooxo Sacuudiga u dhalatay. dadka dacwadda lagu soo oogay waxaa ka mid ah 2 nin oo horey ula talin jiray amiirka kuwaasi oo gaashaanka u daruuray inay arrintaasi wax lug ah ay ku lahaayeen. Sacuudi Carabiya ayaa waxa ay diiday codsi uu Turkiga ku dalbaday in raggaasi ay u soo gacan geliso waxa ayna sanadkii la soo dhaafay 8 qof u xukuntay dilka wariyaha. ugu dambeyntiina dawladda Suudaan ayaa ku dhawaaqday inay dib u bilaabanayaan wadahadalkii kala dhaxeeyay dalka Masar iyo Itoobiya si ay xal looga gaaro muranka ku saleysan biyo xireenka webiga Niil ayaa dhex mara 3 wadan
waxaana dowladda itoobiya ay sheegtay inay muhiim u tahay biyo-xireenka ay ku sameynayso webiga balse arrintaasi waxaa ka walaacsan dalalka masar iyo suudaan oo cabsi ka qaba inay heli waayaan biyo ku filan. bishii lasoo dhaafay wadahadalada ayaa fashilmay kadib markii 3 wadan ay ku guuldaraysteen inay gaaraan heshiis. guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaa ku dhan warkii subax oo idinkaga imaanayay idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho. idinna waad ku mahadsantihiin la socodkii dhegeysiga warkeena.